Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa mar dhaweyd oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ay dadkiisu asaga iyo ra'iisul wasaarihiisii golihiisii wasiirada dhammaantood inay ku sugan yihiin Kiev aysan meel u socon. Waxa ciidamadii inay ku sugan yihiin dalkan, muwaadiniinta inay ku sugan yihiin aysan jiri doonin meel ay ka aadayaan. Ay dalkooda xorriyadiisa iyo madax bannaanidooda ay waqtiga ay naftooda u huri doonaan, halgankana ay sii wadi doonaan ilaa cadowga lagu soo duulay dalka laga eriyo. Dadkan ugu baaqay in ay ka qayb galaan. Dhanka kale, Russia afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca Russia ayaa wuxuu sheegay in ay howlgalla ay ka fuliyeen meelo kala duwan ee dalkaasi ay ku burburiyeen qaybaha kala duwan ee sawaariikhda dalkaas, iyadoo howlgalkaasi ka qayb galay 200 in ka badan oo helikobtarada diyaaradaha. Waxaa ciidamada commandoska lagu daashay qaybo kala duwan ee dalkaasi ka Ukraine. Sidoo kale waxa uu sheegay in nidaamkii electric wave-ga ama electronic ay burburiyeen, raadeeradii iyo isgaarsiintii difaaca inay qadka ka saareen, in ciidamadii gaarka ah ee Ukraine ay sidoo kale ay burburiyeen, ciidamada xoogagga Russia iyo ciidamada badda qaybahooda kala duwan inay ku siisiqayaan dhammaan magaalooyinka Ukraine. Sheegashadaas oo muuqata mid aan intooda badani suurtagelin, walow ay Russia iyo Ukraine aysan isku ahayn. Dhanka kale waxa uu sheegay inay Kiev ka jareen dunida inteedii kala gaar ahaan wadamada reer galbeedka. Waxaa muuqata duqeymaha arxan-darrada ee Russia ku wada dadka shacabka reer Ukraine. Dadka shacabka reer Ukraine ayaa jidka dareemada hoostooda iyo godad dhulka hoostiisa ka samaystay difaacyo, kuwaas oo difaacyada madaaficda iyo sawaariikhda la soo riday ka galayaan. Dadka ayaa intooda badani waxay u soo wada haajireen inay difaacyo ka samaystaan wadada tareenka kaas oo marta dhulka hoostiisa. Dadka shacabka ee reer Ukraine ayaa wajahaya dhibaatooyin wax uga naxaya wax uga